waxaan leeyahay marka waraysooro hambaliyo bogaadin waxaan u jeedinayaa xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta loo daafuray kalfadhigii lixaad ayadoo shantii kalfadhig kale la soo qabtay waxaan kaloo hambali u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya runtii khudbadii qiimaha lahayd oo u jeediyey golaha labada aqal oo kalfadhiga furitaanka kalfadhiga lixaad runtii waxay ahayd yani kalfadhiga soo socda yani dhiirigelintiisa iyo waxqabadkiisa iyo sidii loo yani wajihi lahaa xooggiisa iyo waxyaabaha dhimano dastuurka ugu horreysay loo dhammaystiri lahaa iyo howlaha muxuu ahayto codaynta yani qofkii cod يعني waxyaabo qaybo badan ayuu taabtay runtii aad iyo aad muhiim u ahaa iyo kalfadhiga soo socda baarlamaanka xubnihiisa ama labada aqal sidii ay yani runtii u gudan lahay waajibaadkooda dhammaystirka howlaha qabyada u yaalay oo ugu horreeyay muxuu ahayto dastuurka wuxuu kaloo dabcan waan soo dhaweynayaa sectors kasta oo dhinac kasta ahaa ama ha noqoto siyaasadda ama ha noqoto arrimaha bulshada ama arrimaha dhaqaalaha ama xiriirka yani muxuu ahayto caalamka oo runtii waxa waaye haddee waa howl labada aqal loogu fadhiyo runtii kalfadhigan sidii dardar loo gelin lahaa loona gaarsiin lahaa waxyaabaha dhan oo qabyada si loo gaarsiin lahaa horumar degdeg oo buuxa iyo shuruucda u yaalla oo dhammaystirka u baahan sidii loo dhammaystiri lahaa intaas ugu horreeyay